wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale iyo wararkeena caawa qodobada ugu doorka roona waxaa ka mid ah al-shabaab oo la wareegtay deegaano muhiima oo ku dhow magaalada Boosaaso. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo xilka ka qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan mid kalena magacaabay. mas-uul ka tirsanaa wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo xilkiisa ku waayay xisbi uu diiwaan geliyey. Sacuudiga iyo Imaaraadka oo la sheegay inay u mideynayaan beelo Soomaaliyeed si ka dhan ah madaxweyne Farmaajo. dhaqdhaqaaqa xoreynta NFD oo la sheegay inuu ku dhawaaqay shir weyne. iyo nin Afghanistan oo lagu qabtay Mareykanka laguna eedeeyay inuu ka tirsan yahay al-shabaab. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena caawa. haatanna ku soo dhawaada iyagu faahfaahsan. wararka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay la wareegeen deegaan muhiim ah oo ku dhow magaalada Boosaaso. ururka al-shabaab ayaa baahiyay in xubno ka tirsan ay la wareegeen deegaan istiraatiiji ah oo hoos taga magaalada Boosaaso kaasi oo lagu magacaabo deegaanka af urur. al-shabaab ayaa baraha internetka ku baahiyay in ciidamada Puntland ay isaga carareen deegaankaasi kadib markii ay si toos ah ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka af urur ee gobolka Bari. waxay sidoo kale al-shabaab baahiyeen in ciidamada Puntland ay ka carareen awoodda al-shabaab isla markaana uusan jirin wax dagaal ah oo ka dhacay deegaanka af urur. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Puntland ay iskaga baxay af urur ay gaareen degmada Carmo. dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in ururka al-shabaab ay baaritaano ku sameeyeen xarumihii ay faaruujiyeen saraakiisha Puntland. deegaankan iyo deegaamo kale oo dhowr ah ayaa waxaa horey ugu dagaalamay al-shabaab iyo Puntland waxaana al-shabaab dagaalkaasi looga qabsaday maxaabiis badan oo weli qaarkood ay ku xiran yihiin xabsiyada Puntland. sidoo kale al-shabaab ayaa dagaaladaasi guulo ka sheegatay iyada oo sheegay inay dileen ku dhowaad 100 askari oo ka mid ah ciidamada Puntland. ma jira wax war ah oo weli ka soo baxay dhanka maamulka Puntland ee gobolka Bari oo ku aadan qabsashada al-shabaab ay baahiyeen in ay la wareegeen deegaanka af urur. madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan u magacaabay Cali Maxamed Caraale iyadoo uu xilkaasi ka qaaday Yuusuf Xagar Dabageed. talaabadan xilka qaadista ayaa timid kadib markii uu eedeyn kulul u jeediyay Yuusuf Xagar Dabageed madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare isagoo oo ku eedeeyay in uu doonayo inuu lunsado dhaqaalaha laga ururiyo shacabka gobolka Hiiraan. Yuusuf Dabageed ayaa sidoo kale ku eedeeyay madaxweynaha Hirshabeelle in dad isku jifa ay yihiin uu u magacaabay nidaamka maaliyadda gobolka taasi oo xadgudub ka ah ayuu yidhi howlaha loo igmaday maamulka uu gudoomiyaha ka yahay Yuusuf Xagar Dabageed. wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa xilka ka qaaday Cali Ibraahim oo ka mid ahaa guddiga madaxa bannaan ee isgaarsiinta qaranka. qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka boostada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilka looga qaaday Cali Ibraahim Shaami oo ka mid ahaa guddiga isgaarsiinta qaranka ee dhawaan la dhisay. wararka aan helayna ayaa sheegaya in dhowaan Cali Ibraahim inuu dhowaan ku biiray xisbiga Horusocod isla markaana uu diiwaan geliyey taasi oo keentay in xilka laga qaado sida ku cad qoraalka ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. Cali Ibraahim ayaa ka soo muuqday warbaahinta horaantii bisha Abriil ee sanadkan waxa uuna wariyaasha Muqdisho kala hadlay xisbiga cusub iyo xubinnimadiisa. guddiga isgaarsiinta ayaa la sheegay inuu yahay mid madax bannaan waxaana la ogeyn qaabka uu wasiirka boostada uu xilka qaadistaasi xubinka guddiga ka midka ah ugu sameeyey. guddigani ayaa samayntiisii waxaa ka dhashay buuq badan waxaana diidanaa maamulada dalka qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta iyo xubno kale walow markii dambe la xalliyay khilaafkii jiray. dhanka kale Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa la sheegayaa inay beelo Soomaaliyeed u mideynayaan inay ka hor yimaadaan madaxweynaha hadda xukunka haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wargeyska African Intelligence ayaa qoray in Imaaraadka iyo Sacuudiga ay bilaabeen qorshe xukunka looga tuurayo madaxweyne Farmaajo ayaga oo adeegsanaya qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed. sida wargeyskan ku qoran waxaa bishii tagtay Hargeysa ka degay safiirka Sacuudiga ee Kenya iyo Soomaaliya Maxamed Khayaad iyo saraakiil kale oo u dhashay dalka Imaaraadka Carabta. sida warbixintu ay sheegtay kulankaasi ayaa looga hadlay sidii
sida warbixintu ay sheegtay kulankaasi ayaa looga hadlay sidii la isugu geyn lahaa awoodda beelaha hawiye iyo isaaq ee doorashada 2021 loona xaqiijin lahaa in doorashadaasi lagaga adkaado farmaajo oo labada beeloodba ay aada uga soo horjeedaan. waxaa sidoo kale la isla qaatay sidii loo heli lahaa siyaasi hawiye ah oo awoodda labada beelood la isugu geeya si loo doorto. waxaa sidoo kale kulanka la iskula raacay in Hargeysa ay noqoto halka lagu maalgeliyo ololaha lacagta Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga la soo mariyo, halka magaalada Nairobi ay noqonayso xarunta labaad. xiriir ay warbaahintu la sameysay maamulka Somaliland waa ay beeneeyeen warbixinta wargeysta African Intelligence. dowladda Mareykanka ayaa la sheegay inay xirtay ruux ajnabi ah oo la sheegay inuu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya. ninkan la xiray oo u dhashay dalka Bangladesh ayaa lagu eedeeyay inuu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab, waxaana saraakiisha Mareykanka ay sheegeen in ay hadda xabsiga lagu hayo isla markaana baaritaano ay ku socdaan. sidoo kale muwaadinkan u dhashay Bangladesh eedaha kale ee loo haysto waxaa ka mid ah in uu isku dayay inuu weerar ka geysto fagaaraha Times Square ee magaalada New York ee dalka Mareykanka. Ratul Ashikim Khan ayaa lagu xiray gobolka Texas ee dalka Mareykanka, waxaana uu ku eedeysanayay inuu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab walow aan xog dheeraad ah laga bixinin qaabka uu xiriirka ula lahaa ururkan Al-Shabaab. waxa uu 2014 caawiyay dhalinyaro u safrayay dalka Afrika kuna biiray dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya. Ashiqul Alam oo 22 jir ayaa la sheegay in uu taageero rasmi ah u ahaa hogaamiyihii hore Al-Qaacida Osama bin Laden. sida lagu sheegay war lagu daabacay barta Twitter-ka ee dhaqdhaqaaqa xoreynta NFD, waxaa dabayaaqada bisha Juun ee 2019 ka dhacaya shir ballaaran oo lagu casuumay xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. sida qoraalka lagu sheegay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta lagu casuumay kulankaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Aadan Barre Ducaale, xildhibaan Ilyas Barashiil, xildhibaan Cali Bunow Qorane, Faarax Macalim, Axmed Naasir iyo Junayd Maxamed. shirka ayaa ka tashiga gobolka Waqooyi Bari ayaa waxaa sidoo kale kasoo qaybgeli doona odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa xoreynta NFD, iyadoo lagu faaqidayo dhibaatada gobolkaasi uu ku jiro muddada dheer dhinaca maamulka, horumarinta iyo tacadiyada ay ciidamada Kenya ku hayaan xoolo dhaqatada iyo guud ahaanba dadweynaha gobolkaasi Waqooyi Bari. shirkan ayaa kusoo aadaya iyadoo Kenya ay ku lug leedahay muran badeed ku saabsan isku dayga Kenya ee qaadashada dhulbadeedka Soomaaliya oo muddo dheer ay isku dayeysay sidii ay u mulkiin lahayd dhul aanay lahayn. dhanka kale xubnaha shirkan lagu casuumay ayaan weli wax hadal ah ka soo saarin oo ku saabsan in ay shirkan ka qayb galayaan iyo in kale. taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in ay baaris ku wadaan waxyaabaha uu sababsaday gaashaan la dhexe Cabdi Cali Seed oo ka tirsanaa booliska kaasi oo shalay isku dilay Muqdisho. waxay intaasi ku dartay in hay'adda dambi baarista booliska ee loo soo gaabiyo magaceeda CID-da ay ku hawshan tahay kiiskaasi. Allah u naxariistee, waxaa maanta geeriyooday marxuum gaashaan la dhexe Cabdi Cali Seed oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gaar ahaan ciidamada daraawiishta. hay-adda dambi baarista ee CID-da ayaa haatan ku howlan baarista kiiskaasi iyo sababta uu u geeriyooday marxuumka, ayay tiri taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed. gaashaan la dhexe Cabdi Cali Seed waxaa meydkiisa laga helay xerada Sheelare oo uu deganaa, isaga oo qoorta xarig uga xiran yahay isla markaana ka soo laalaada geed, waxaana ehelkiisa ay dalbadeen in la baaro, iyaga oo sheegay in aysan aaminsanayn inuu isdilay. sababta ka dambeysay inuu isdilo ayay ila xog ogaalihiin noogu sheegeen inay isqabteen taliyaha ciidamada booliska Generaal Bashiir Americo kadib markii uu ka qaaday xilkii taliyanimo ee xerada Sheelare, amarna ku bixiyay inuu iskaga guuro xerada gudaheeda.